gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ee Now Marwa Xalime Xaaji Cabdi oo warbaahinta kula hadashay xafiiskeeda magaalada Hargeysa ayaa faahfaahin ka bixisay deeq waxbarasho oo dhan 100 gabdhood oo ururka haweenka qaranka ee Now uu ka helay jaamacadda The Unity waxaana fariin u dirtay hablaha reer Somaliland inay ka faa'iideystaan deeqdani waxbarasho. maanta halkan waxaan uga hambalyeynaa jaamacadda Unity Universal oo nasiisay 100 hablood hablahaas aan u sheegayno dhammaan dhalinyarada ka soo baxday iskuulada sekondariyada sanadkan jaamacadaha ay u baahan jaamacadaas oo aan ugu mahadnaqayno inay 100 ardayna siiyeen waxaan doonaynaa hablahaas meel kasta ha joogaan inay soo xareeyaan CV-yadooda oo ah ka yahay shahaadada dugsiga sare laba sawir ee dhikaarkooda oo xafiiska ururka qarankeena ku soo xareeyaan oo xafiiskaas ku yaala area shacabka ku yaala area casad ku yaala dhammaan hablaha waan ugu baaqaynaa meel kasta joogaan inay soo xareeyaan CV-yadooda jaamacadda waxaan uga mahadnaqaynaa deeqda waxbarasho ballaaran siiyeen oo mar iyo laba toon ahayn oo muddo dheer intay furneed bayna siinayeen maantana deeqda waxbarasho ugu ballaarneed ayna siiyeen oo 100 hablooda dhammaan hablaha dhalinyarada waxaan leenahay ka soo qayb gala area casad xafiiskana hadii alla ka ururka haweenka qaranka ee Now ayaa u taagan markasta wax u qabashada gabdhaha reer Somaliland si gaar ah gudoomiye Xalime Xaaji Cabdi ayaa iyaduna ku suntan wax u qabashada haweenka reer Somaliland maaha markii ugu horeysay ee deeq waxbarasho ururka haweenka qaranka ee Now uu siiyay gabdhaha reer Somaliland. Maxamed Cumar Daariq warbaahinta RTN Hargeysa. ku dooro xirmada billaha unlimited-ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab kood nambarka xidig 1 eber 1 4 gees